ma la socotaa qisada Heaven? weligaa ilma aa dhashay qofnaha way tegin. Heaven waxay ahayd 7 jir ku sugan dalka Ethiopia. waxay la degnayd hooyadeed oo single mother ah. hooyadeed marka waxay degnaayeen guryaha isku furan ama guryaha adugu halka albaab laga soo galayo. guriga Heaven waxaa la degnaa qoys kale, qoyskaas oo aad iyo aad ay ugu kalsoonayd Heaven hooyadeed, maadaama in badan ay wada degeen ama wada degnaayeen. maalin maalmaha ka mid a Heaven hooyadeed waxay aaday shaqo. Heaven waxay la ciyaaraysay reerka kale, gabdhahooda bay la ciyaaraysay. maadaama Heaven hooyadeed shaqo ay aaday, gabdhaha yaryarna ay la ciyaaraysay Heaven hooyadoodna iyadana shaqo aaday, banaanka u yara baxday. waxaa isku soo haray Heaven iyo 3 gabdhood ay la ciyaaraysay iyo aabahood. Heaven wuxuu kala soo dhex baxay gabdhihiisa. waa 7 jir ku haya taas maskaxda. Heaven wuxuu ku sameeyey markuu kala dhex baxay ciyaalka kale, oo kufsaday, oo ceejiyey, oo jarjaray. waliba wuxuu u jarjaray si loo moodin arrinkan inuu kufsi yahay, balse inuu yahay ilmahan oo dakhar soo gaaray ama meel ka dhacday. okay, wuxuu kaloo sameeyey Heaven jirkeeda markay jarjareen bleach ayay ku dhex rideen, ama jigda saa u naqaano ee musqulaha lagu dhaqo, si uu uga tirtiro DNA-giisa maadaama uu kufsaday. markuu waxaasoo dhan uu ku sameeyey Heaven, horta intay dhimanin Heaven wuxuu sameeyey afka ayuu ciid uga guray si ay u qaylinin. balse markuu bleachka kusoo dhex riday oo is yiri DNA-gaagii waad ka tirtirtay, bal naxariis darrada eega. cunugtiioo jarjaran oo la ceejiyey oo afka ciid uga buuxda buu wuxuu ugu soo tuuray albaabka gurigooda. ayuu kusoo tuuray. hooyadeed way aragtay, way qaracantay dabcan, waayo Heaven waxay ahayd ilmo yar oo aad iyo aad u qurux badan. ilmo u qalmana ma jirto xadgudub intaa la eg. maanta ninkii Heaven falka u geystay waa xor, mana xirna. Heaven dhibaatadaas oo dhan waxay kusoo gaartay, horta waa qadar. qadarta marka laga sii tago, dad ay ku kalsoonayd, ay ehel moodaysay, ay la ceeshtay baa falka u geystay. yacni aabbaha keliya maaha, waa aabbaha, waa naagtuu qabo iyo walaashiis. Heaven sida dharka ayay u dhaqeen, siday DNA-giisa uga tirtiraan. Heaven kole cadaalad bay u baahan tahay. marka muhiimadda qisadan waxay tahay, ilmihiina qofna ha ku aaminina. okay, qofna ha ku aaminina. waxaasaa loo galay waa 7 jir. macaadallah ilma xalay dhashay.